shirka gudiyada shaqaalaha rayidka dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir iyo waliba geeka si toos ah ku furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay shirkan oo marti geliyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo waliba furitaanshii ku qayb galaya gudoomiyaasha gudiyada shaqaalaha rayidka dowlad goboleedyada dalka sida Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle, Puntland, gobolka Banaadir agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka Koonfur Galbeed Sharmaake Maxamed Kuulow iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Abshirow Maxamed shirkan oo intiisa socod la kala foguri doona arrimo maareynta mideynta iyo khibrad wada qaybsadowga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedyada dalka iyo tan federaalka Soomaaliya iyo waliba aan ka horeyn furitaanka madalla gudiyada shaqaalaha rayidka ku hadlay Sharmaake Maxamed Kuulow gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka Koonfur Galbeed oo sharaxawa muhiimadda shirkan Baydhabo la gobolka rayidka sababtoo ah guddi walba oo maamul goboleed ama dowlad goboleed gaar ah uu ka socdo hadii meeshiis la uu joogo oo uu rabin inuu gudiyadii kale la jaan qaado oo la shaqeeyo guulo uu soo hooyiyo waxay ila tahay wax guulo ah uu kaligiis heli karo inaysan jirin waxa muhiim ah inaa isu imaanay heshiinay dad mas'uuliyiin oo isu imaaday dowlad goboleed matalay aan noqono aan wada heshiinay communicate aan soo wada ansaxisano oo aan ku heshiisanahay oo qodobo aan ku heshiinayna aan meesha keeno si gaar ah way basin lana Baydhabo ka dhawaada qof walba luqada maayga inuu bartaa la rabaa hadii Ilaahay yiraahdana waxaan rajaynaynaa at least 2 to 3 points or words inaad idinkoo faa'iideen Baydhabo ka dhawaada waa xarun dalxiis haduu Ilaahay yiraahdana waa idin geyn doonaa fursadan raadinayna idinkoo ka dhargay anaga cocktailkeen waa caano geel hadii idin sheego cocktailka aad noogu imaan doontaan haduu Ilaahay yiraahdo mar aan is wada raaci doonaa soodo oo aad furan doontiin ma jirto caano geel ameel waleero ameel hadaad maqasheen caano geel arki doontaan haduu Ilaahay yiraahdo hana hukuumadda gudoomiyaasha gudiyada shaqaalaha rayidka dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir iyo waliba dhinaca Kiishiyo Hussein muhiimadda leeyahay in la ku shaqeeyo arrimo maareynta iyo mideynta shaqaalo insha Allah sharaf fiican oo aad u wanaagsan kan waxa rajaynaynaa in ka faa'iideysano noqotay in idinka naftigiina noqotaan dad dhisan oo research sameeyaan isku wadaarsataan wax isku bandhigtaan isha joogtaan ognahay cidii soo qaadi lahayd waa bani aadamka ama dadka Soomaaliyeed dadkaani marka waxay u taagan yihiin dadkaas iyo horumarintoodii iyo inay keenaan level ay dadkooda iyo dalkooda ay ku horumari karaan aad iyo aad marka macno weyn u leedahay qiimo badan u leedahay meel kasta in loogu safray mudan tahay ku cusub yihiin hanaanka guddi shaqaale uu ku cusub yahay guud ahaan geyga Soomaaliyeed ayna jiraan in aysan dad badan u faham buuxa ka haysan waxa uu yahay guddi shaqaale iyo sida ay ku dhici karto guud ahaan Soomaaliya marka la joogo gudaheeda aysan aaminsanayn dadku sida ay ku hirgeli karto hanaan shaqo qoris furan inay jirto waxay muhiim u tahay in guddigayada shaqaaluhu ay diyaariyaan recruitmentka waa meesha shaqaalaha rayidka ee dawladda laga qoro hadaanan siyaasad adag ama barnaamij adag aan laga diyaarinin waxa adkaanaysa in bulshada Soomaaliyeed ay hesho adeeg hufan oo wanaagsan marka qofka bulshada u adeegayana waa inuu noqdaa qof ehel oo ah shaqada uu qabanayo aqoon oo leh ka soo bixi kara 2020ka oo ujeedadiisa ahayd isduwada iyo maaragtay isku xirka iyo maareynta arrimaha shaqaalaha maadaama aan anaga baax shaqaalanahay gudiyada shaqaalaha rayidka waxay ka shaqeynayaan tahay amuuraha iyo howlaha shaqada iyo shaqaalaha in aan yaani gudiyada shaqaalaha la isbartaan la isku xiro maadaama ay isku shaqo yihiin shaqo wadaag yihiin ayaa shirkaas ay daba socdaa agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Abdullaahi Ali Watiin wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamed Ali iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ahmed Maxamed Hussein oo ku qayb galay kulanka iyo waliba yoon inijo ka dheeradana inay shirka la ku saara arrimo muhiim ah shaqaalo rayidka dowladda federaalka ku fadhiyay iyo gudoomiyaasha shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleed iyo Banaadir inta fadhiyaan ma la faday maskanta la shiilo
dabcan walbadan may boolaha kasar may booyaan baahi dabcan bay loo kooyteen Jubbaland seeteen Puntland la seeday meel kas way seeday may la faday tor oo nooc oo kale oo lambahayo may booldig wadan dibadiis lambahayo istadi la suubiyo san shaqeeyaan shaqaalaha rayidka Kenya san shaqeeyay shaqaalaha rayidka Ethiopia san shaqeeyay kan Djibouti may boo san shaqeeyay may boo tor badan oo loo soo kar may boo in la soo may boo yeelan baahi taas marka may kordhaysa capacity oo may boo shaqaalaha rayidka kordhaysa may kordhaysa capacity may raayso fahanka guud oo may raayso la kala hayo shaqaalaha rayidka may soo saaray xakamida qofka marka shaqaalaha rayidka uu noqonayo shaqada ugu horeysa ugu dhibka badan loo dhiibay forma loo dhiibay buuxile marka meesha stage ugu horeeya waa qofkii aan form buuxin jirin iyo ama xitaa si laab rabo inuu ku soo maro meeshaas ee ku adkaanaysa inuu soo gudbo marka intaas laga soo gudbo wax soo bixi kara waa iska dareemi kartaa marka qof jaacad soo dhameeyay ama dugsi sare ka soo baxay oo jaanis la siiyay oo dalkii ugu adeego asagiina horumar oo ka sameeyo fursadaha ku jiro waxa kamid ahayd oo dhalinyarada aad uga faa'iiday qofka inuu heli karo jaanis waxbarasho jaamacadii inuu dhigto fasax waxbarasho la siiyo mushaarkiisa aan laga goosan waxaan ka shaqeyn jirnay qaabkii loo xoojin lahaa institution kan oo shaqaalaha rayidka marka laga hadlayo Soomaaliya hadda waxyaabaha reformka lagu sameeyay waxa ugu weyn oo ay ka hadlayaan waxa waay dhaqaalihii iyo security sidoo kale waxa aad macnaha waxa waay waxyaabaha reformka lagu sameeyay kamid ah public administration ama shaqaalaha waa qayb kamid ah benchmarkska ama cabirka oo bangiga adduunka iyo IMF ay ka rabaan Soomaaliya BFM systemkii ama public financial management in la hagaajiyo sidoo kale in public administration ki maareyntoodii iyo nidaamkoodii in aydan la hagaajiyo waa qayb aad muhiim u ah oo waxay ku tusinaysaa marka in dawladnimadii maraayadii meelaha laga fiirinayo ay kamid tahay shaqaalaha xasan abshirow gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dawladda federaalka Soomaaliya oo si toos ah furay shirka ee waliba uu sheegay in muddada uu socdo shirkan la kula saaro doona arrimo walka oolan leh waana anfaca doona bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu faraxsanahay in arrimahaasi ay maanta ay horumar weyn dalku gaaray ay tahay oo aanan ahayn meeshii maanta 2006 la joogay aan la joogin 2010 meeshii la joogay aan la joogin 2012 meeshii la joogay aan la joogin 2016 meeshii la joogay aan la joogin maanta meel laga doodo sidee ba shaqaalaha loo qorayaa see loo eriyayaa xuquuqaadkoodu maxay noqonayaan haddii muxuu ahaa shaqaalihii ay meel walba ay joogaan agaasimihii shaqaalaha ee Puntland jooga sidee lagu geyn karaa muxuu ahaa caasimadda ama Muqdisho ama dawladda federaalka ama Jubbaland oo kale loo geyn karaa nidaamyada in laga doodo maanta waa horumar la gaaray waay marka runtii qodobada mid aan u dul istaagi doono waxa kamid ah in marka hore la dhageysto gudiyadii farsamada waxyaabihii ay ka soo shaqeeyeen muddooyinkii dhowrkii bilood ahaa oo runtii aad ay ugu soo dadaaleen inta briefingka ama kala warqaadashada aan ku jirnay oo ahaa kala duwanaanshaha qorshaha shaqo abuurkana horay dhowr jeer ay usoo gudbiyeen waxaan ku faraxsanahay in wasiirka maaliyadda joogo agaasimihii guud ee madaxtooyada oo siyaasad ahaan xafiiska madaxtooyada iyo xafiisyada la mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhankeena markii loo fiiriyo qaabka ugu umuudoon loo abuuri karo shaqo iyo siyaasadahaasi in ayagana ay wax kala xadidaay la helo dadka farsamada oo agaasimayaasha guud iyo wasiiradu ay kala farsamaan intaba talooyin badan oo gudiyadu ay ka soo jeediyaan haddana waxaan rajaynaa in qorshahan hadda aan wadno oo roadmapkan na gaarsiin doono heer aan inta ku soo saarno waxyaabaha marka dhaqaale u baahan aan dhahno wasiirka maaliyadda adaa la gacan lagaaga baahan yahay siyaasadaha wixii loo baahan yahay aan dhihi doono kabinetkii in arrinta gacan ka siiyo ayagana waa gaari doonaa insha Allah anaga waxaan awoodeena iyo tabarteena isugu geyn doonaa sidii arrinta lagu dhameystirnaa marka shirkeenana waa noo furan yahay dhammaan saabta marka la ka soo qayb gashay wasiirada waqtiga aadka nasiiyo maanta la joogay iyo saaxiibadayda oo dawlad goboleedka xubnaha gudoomiyaasha iyo xubnaha kale oo safar soo galay ayagana daalan hadana shirka hore laga soo galayna waa ku mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirko oo marar badan laga qobday dawlad goboleedyada galmudug gobolka banaadir iyo waliba nasiiban weelatay inay martigelida dawlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo waliba uu socdo doona 4 maalmood Ibrahim Xasan Ali warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo